una yahay baasaboorka dalka Eritrea laakiin maxaa la isku waafaqsan yahay maalintii khamiistayda aynu soo dhaafnay saraakiisha TPLF kulan ayaa waxay ku yeesheen magaalada la yiraahdo Mahoni yahay nin wadani ah oo Afrikaanimada iyo geeska uu ku nool yahay ka dhabaynaya oo dadkii oo dhan ciidankiisu ay u danqanayaan maxay tahay xaqiiqada saxda ah ee hadalka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Soomaalidu ay cabsi ka muujinaysay in Ethiopia saylac ay ku socoto xilli waxay soo baxaysaa wasiirka ganacsiga wasiirka gaadiidka Ethiopia uu Hargeysa tagay oo yiri waxaan soo ceshanaynaa sheerkii aan ku lahayn meesha la yiraahdo waxa weeye Berbera waxay soo baxaysaa kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni guutada wararka iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee wadanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Axmarada maxaa ka soo qor barnaamijka waxaan galabta ku la faguri doonaa dhowr qodob oo muhiim ah hogaanka Fano oo la sheegay in uu wato baasaboorka Eritrea sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegi doonaa dawladdu waxa ay sheegtay in ay soo afjartay gabi ahaanba dagaalkii ay Axmarada kula jirtay isla markaasina ay ka adkaatay balse maxaad ka ogtahay xogaha soo baxaya ee ku saabsan in TPLF ay qorsheynayso weerar in ay ku qaado gobolada Walqayd iyo Raaya sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegi doonaa hadalkii Ra'iisul Wasaaraha goortii uu ciidanka tababarka u soo xirihay Faaya ayaa barnaamijka martay waa balseedii ku soo dhaw barnaamijka marka hore bal waxaad naga warbixisaa hogaanka Fano ku bilaabayna bal Fano waxay nooga taabo dadka aan fahansanayna fahansi marka hogaanka Fano in uu wato baasaboorka Eritrea saameyn intee leeg bay leedahay maxaa loo fasiran karaa Cabdullaah baad ma santahay marka hore waxaan ku horeynaynaa degmada la yiraahdo Dabra Ilyas oo bariga gobolka Gojaam ah habeenkii xalay ahaa gudoomiyihii degmadaasi dablay hubaysan oo la aqoonin haybtooda ayaa la sheegaya inay dileen gudoomiyihii degmadaas arrintan waxay ahayd arrin ku soo noqonaysa gudaha Ethiopia intaas marka laga soo tagay inuu noqono Fano iyo hogaamiyaheeda iyo baasaboorkan laga shanqariyay ninkan waxaa lagu magacaabaa Semena Kasai sanadkii hore ayaa lagu xidhay magaalada Addis Ababa muddo ayuu xabsiga ku jiray kadibna dawladda ayaa soo deysay waxaa la sheegay in uu safar ku tagay dalka Eritrea halkaana uu ku soo qaatay tababar la xidhiidha hogaaminta militariga hogaaminta siyaasadda iyo sidoo kale qorshayaasha nidaam ee dagaalka marka jamhadaynta sidoo kale waxaa soo baxaysay kooxaha Fano habeenkii ay qabsan hayeen meeshan la dhaho Bahardaar in uu ku sugnaa mid ka mid ah qabalayaasha magaaladaasi ay isagana ay la baxayeen waxaa kale oo jirta in hogaamiyahani dhowr jeer uu warbaahinta ka hadlay waxaadna moodaa qaabkii Faanadii hore u hadli jirtay nin kaga firfircoon xagga hadalka oo Faanadu andinetkan Ethiopia iyo qoomiyadahan kale iyo dastuurka iyo qodobkan 39 waxyaabo iska hadli jireen laakiin ninka waxaad moodaa nin yar active ah oo Ethiopia qaabka u socoto fahamsan inuu yahay iyo ma aqaanada inuu training ku soo qaatay xaggan Eritrea waxaan u noqonaynaa arrinta baasaboorka sida ay saaxiibadeen hadda ka arkayaan shaashada jeclaan la inaad la sheer garayso baasaboorkan ninkan waxa uu goostay 2017 sida ku cad 2017 ayuu goostay gobolka Gojaam buu ku dhashay baasaboor Eritreana Ethiopiaanka marka su'aalo badan ayaa arrintaasi ka dhashay qaar waxay leeyihiin ninkan baasaboorkani waa fake oo xilliga la gooyay iyo xilligan Amxaaradu Faanada la aasaasay iyo xilligu hogaamiyaha Fano noqday wax isla ma jiro laakiin waxaanu anigu xaqiijin karaa hadda in baasaboorkan hadda saaxiibadeena ay shaashada ku arkayaan inuu yahay baasaboorka la sheegay in uu wato Semena Kasai oo yahay baasaboorka dalka Eritrea laakiin maxaa la isku waafaqsan yahay waxa la isku waafaqsan yahay Semena Kasai inuu tagay dalka Eritrea halkaan uu ku soo qaatay tababarro dhowr inuu ku soo qaatay arrinta waa isku waafaqsan marka bal dhinaca kale markaan fiirino dawladda Ethiopia waxa ay iclaamisay oo ku dhawaaqday inay gabi ahaanba dagaalkii soo afjartay nimankii Fano iyo Axmaradeena ay afka ciid u dartay isla markaasina ay ka raysay hadalka maxaa ka jira dawladdu se gabi ahaanba gobolka gacan ku hayntiisa miyay la wareegtay mise waa hadal siyaasadaysan horta Cabdiwaliyow gobolka Amxaarada dawladdu war bay soo saaraysaa saacadba saacada ku xigto oo ay ka mid tahay gacantan ku dhignay gobolkii waxa la soo celiyay isku socodkii waxa la soo celiyay sareynta sharciga waxa la soo celiyay isha waxa weeye in dib loo furo ganacsiyada xafiisyada dawladda laakiin gobolkii guud ahaan wali waxa ka jira bandow waxa go'an anteenooyinkii isgaarsiintii
waxaa jira dagaalo ka dhacaya goobo goosgoosa oo magaalooyinka waaweyn ku hareeraysan oo kooxahan amxaaradu ay xaqiijinayaan waxaa jiro in weli kooxdan faano ay gacanta ku hayso say iyagu sheegteen inay gacanta ku hayaan xubno ka mid ah ciidanka militariga Ethiopia dawladdu weli waxaa shaqaynhayo bandowgii lagu soo rogay ee ahaa laga soo bilaabo 7 maqribnimo ilaa subaxii in 6 isha barqanimo subaxnimo bandowgii lagu soo rogay ayaa weli jiro maamulkii dawlad deegaanka amxaarada ee shaaciyay in ay xukunka ku wareejiyeen dawladda oo iyagu hadda laga bilaabo ay militariga hawshan gacanta u gashay ilaa ay hadda meel ay ku dambeeyeen iyo meel ay jaan iyo cidhib dhigeen midna lama hayo ciidamadii militarigana gobolka waa ku sii qulqulahayaan shalay u dambeysay faana waxay sheegtay in jidgooyo ay u dhigeen ciidanka militariga Ethiopia inay kumanaan kaga laayeen yay shalay xaqiijiyeen marka weli waxaad moodaa in khatar amni ay gobolka weli ka jirto dawladdu laakiin ay rabto inay dadka ku qanciso in khatartaasi la soo afjaray dhinaca kale haddaan kaa tuso faano waxay taagan tahay annagaa si iska naga uga baxnay magaalooyinka halka xeelad dagaal baan uga baxnay iyadoo weliba dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Ethiopia ay leeyihiin waxaan qorshe laga shaqeeyay buu ahaa faanadu inay marka hore awoodooda tijaabiso si shacabka amxaarada gacanta loogu dhigo awoodooda markay tijaabiyaan kadibna inay magaalooyin ka soo baxaan kadibna tactics qorshe ay diyaariyaan saas ayadana leeyahay dhanka kale TPLF oo dawladda Ethiopia ee federaalka ah iyo ciidanka militariga ah garab u ah isla markaasina duulaan ku axmaarada ayaa waxa la sheegayaa in ay weerar ay ku qaadayaan gobolada Walqayd iyo Raaya arintaasi maxay salka ku haysaa maxay tahay cadaawada ka dhaxaysa Tigray iyo axmaarada nimankan Tigray waa kuwii waa dhaweyto ilaa muddada 3 sano ee dawladda Ethiopia ay baabiisay maxay tahay hadana qaabka ay u taageerayaan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed isla markaasina ay axmaarada u weeqayaan horta Cabdiwali oo sida la sheegay maalintii Khamiistayda aynu soo dhaafnay saraakiisha TPLF kulan ayaa waxay ku yeesheen magaalo la yiraahdo Mahoni isla markaana waxay isla meel dhigeen qorshe hawlgal military kaasoo la sheegay in uu ka dhacayo gobolada ka maqan Tigreega waa sida labada gobol ee Walqayd iyo Raaya hawlgalkan waxaa la sheegay in uu bilaaban hayo kowda maskaram ilaa 16 nihaase ee muddada u dhaxayso ayaa la sheegay in saraakiisha TPLF ay arintaas ku heshiiyeen sidoo kale waxaa la sheegay in TPLF hadda ay soo diyaarisay ciidan ahaan iyo qorshe ahaan iyo istiraatiijiyad ahaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay TPLF fursad baa soo martay fursadaasi waxay ahayd in amxaarada iyo ay isku dhaceen xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed TPLF kamid ma aysan ahayn kilaladii ka qayb qaatay dagaalka ee yiri waa in la jabiyo lana dagaalamo amxaaradan sidoo kale intii uu dagaalkaasi socday dhinacooda wax dagaal kama aysan soo qaadan oo way u aamuseen bataatanba waxa marka hadda soo kordhinaya in TPLF maanta ay ka shirto siday dagaal ugu qaadi lahayd goboladan Walqayd iyo Raaya su'aal baa meeshaas ka muuqato waxa kale iyadana jirto la leeyahay TPLF waxay qabtaa cabsi Eritrea marka waxay leedahay dad amxaarada ku dhufato ama Eritrea ay gadaal idin ka soo gashaa waxa kale oo la sheegayaa in TPLF ay qabta cabsi ah haddii Abiy Ahmed dagaalka la gashaan ama saraakiishiina iyo hogaamintiina si hoose loo kharijiyo assassination lagu sameeyaa TPLF waxa kale oo xilligan ay ka cabsi qabtaa maadaama ay dagaal ka soo baxday dawladda Ethiopia arrimo ka dhan xaqul insaanka ay ku eedeynayay waxa weeye haddana xoogaa fursad ay caalamka kula xiriidha ay haysato waxay ka cararaysaa eeda in hadda loo jeediyo marka waxa kale oo iyadana meesha ku jirto in Abiy Ahmed ay taaka kaga dhigayso sidii dhulkan Walqayd iyo Waqooyi iyo Raaya iyo goboladan laga haysto sidii Abiy Ahmed uu ku soo celin lahaa nidaam ahaan iyo siyaasad ahaanba sidoo ku soo celin lahaa oo Abiy Ahmed laftigiisa arintaasi ay mucjiso ku tahay isku soo duuduubo in saraakiisha TPLF ay kulmeen ku heshiiyeen sidii goboladan dagaal lagu qaadi lahaa qorshana loo diyaarin lahaa waa arin xaqiiqo oo la xaqiijinayo waata aad baad mahadsan tahay Sayid Fahiye su'aasha ugu dambaysa ee barnaamijka ayaan u sii talaabaynaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo u khudbeynayay ciidan uu tababar u soo xiray ayaa waxa uu sheegay ciidankan Ethiopia in laga cabsanin isla markaasina ay yihiin ciidan geeska Afrika uu leeyahay wax halis ana oo soo kulahayn
هذا الكادد دتكو السيابة كلا دوم بأفسرتين أبي أحمد وحدولان كويه هاي جيسك أفريقيا صوماليا إريتريا جيبوتي ودولان كويه qaar kale waxay u fasireen in uu yahay nin wadani ah oo Afrikaanimada iyo geeska uu ku nool yahay ka dhabaynaya oo dadkii oo dhan ciidankiisu ay u danqanayaan maxay tahay xaqiiqada saxda ah ee hadalka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed horta hadalka Abiy Ahmed wuxuu ahaa dalalka jaarka ah yaysan ka cabsanin ciidanka faraha badan ee maalin walba Ethiopia ay tababaranayso ciidankan argagaxa ka muujinina waxaan ugu talagalay in Ethiopia ay difaacaan sidoo kale in ay ilaaliyaan sharafta iyo karaamada qaaradda Afrika waa asaga hadalka soo dhigay hadalka laakiin inta ugu muhiimsan yaa waxay tahay wadamada jaarka nala ah yaysan ka cabsanin ciidanka kumanaanka ee tababaranayno argagaxna yaysan ku abuurin waa hadalka ugu muhiimsan hadalkan wuxuu ku soo aadayaa xilli isbuuciyo ka hor Abiy Ahmed uu sheegay in Ethiopia 3 darajo ay ku doonayso inay bad ku hesho inay Bifrost ku hesho inay isha give and take ku hesho iyo inay ku hesho wada hadal caalami ama negotiation waxa kale oo soo baxaysa xilli la sheegayay in Ethiopia isu diyaarinayso inay ku socoto dekadahan Eritrea xilli waxay soo baxaysaa Soomaalidu ay cabsi ka muujinaysay in Ethiopia sayl ay ku socoto xilli waxay soo baxaysaa wasiirka ganacsiga wasiirka gaadiidka Ethiopia uu Hargeysa tagay oo yiri waxaan soo ceshanaynaa sheerkii aan ku lahayn meesha la yiraahdo waxa weeye Berbera waxay soo baxaysaa xilli Djibouti iyo Eritrea aysan isku fiicnayn marka hadalka Abiy Ahmed dhinac walba loo rogrogo saddex waji ayuu saddexba yeelanaya kow hadalkii Abiy Ahmed ee ahaa saddex darajaan ku dooneen inaan bad ku helo saameyn bay ku yeelatay xukuumaddiisa oo waataan arkayn in barnaamijkan Inside Story Al Jazeera ay soo dayso lagaga falanqoonay 40 daqiiqo laga hadlay qaabka Ethiopia u rabtay nidaamka isu diyaaris iyo Ethiopia waliba aan bad lahayn inay ciidamo badeed ay diyaarsatay waxa kale oo hadalkan uu asaga ku wajahmi karaa cabsida laga qabo dagaal dhexmar Ethiopia iyo Eritrea waxa kale oo iyadana meesha ku jirto in Abiy Ahmed hadda ay ku furan yihiin qulqulatooyin siyaasadeed oo gudaha ah inuu cabsi ka qabo in mid daakhili ah inay saamayso saddexda qodob baa la dhigi karaa marka Abiy Ahmed hadalkan hadda way ku riixeen waa tahay aad baad maasan tahay kaasi wuxuu ahaa Sayid Faahiye oo nala falanqeynaya xaaladihii ugu dambeeyay ee Ethiopia barnaamijkan kiisa xiintan hawada dib u kulmi doono waxaan ka tagaynaa sidaas iyo salaam